culimada gobolka Togdheer waxa ay bulshada Somaliland u dardaarmayaan cabsida Ilaahay iyo inay isaga tala saartaan toobadkeena la yimaadaan. qodobka labaad ogaadinayaan dadaalada ay ku jirto xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo gudida heer qaran COVID-19 waxayna Ilaahay uga baryayaan inuu hawshaas u fudaydiyo kuna garab galo. qodobka saddexaad culimada gobolka Togdheer waxa ay bulshada Somaliland u cadeynayaan in xanuunka COVID-19 uu leeyahay khatar caafimaad oo gaarsiisan inuu sababi karo dhimasho sida haddaba uu adduunka u aafeeyay mudanna in laga diyaar garoobo. qodobka afraad culimada gobolka Togdheer waxa ay fatwo ku soo saarayaan in qofka muslimka ah ay u bannaan tahay inuu ka hari karo jamca iyo jumcada haddii ay jirto khatar caafimaad oo halis gelin karta noloshiisa iyo nolosha dadka kaleba. qodobka shanaad culimada gobolka Togdheer waxa ay cadeynayaan qodobka shanaad sida ku cad warmurtiyeedka ay soo saareen culimada Somaliland ee ka qabsay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Somaliland kuna taariikhaysnaa bishii Afarteedii 2020 iyo sidoo kale go'aamada ka soo baxay gudida ka hortagga COVID-19 ee heer qaran midna kuma jirto in la xiro masaajida haddana ma muuqato daruuro keensanaysa arrinkaas. qodobka lixaad sida aynu la wada soconno xanuunka COVID-19 waxa uu inaga yimi waddanka dibaddiisa. haddaba culimada gobolka Togdheer waxay cod dheer ugu sheegayaan xukuumadda Somaliland inay xidho xuduudaha dalka iyo dawladnimada isla markaana ay joojiso qaadka iyada oo hadda ay bulshada iyo ganacsatada qaadkuba u diyaarsan yihiin inay ka qaataan doorkooda. haddii aan la xirin lana joojin dhibta ka timaada waxa qaadaya mas'uuliyaddeeda ciddii ummadda ku soo daysay khatarta la wada arkaayo. culimada gobolka Togdheer waxa ay qodobka toddobaad culimada gobolka Togdheer waxa ay ku talinayaan in la ballaariyo gudiyada heer qaran iyo heer gobol ee qaabilsan wacyigelinta xanuunkan laguna soo daro qaybaha kala duwan ee bulshada. qodobka sideedaad durba waxa muuqanaysa saamaynta dhaqaale ee uu keenay xanuunkan COVID-19 waxay culimada gobolka Togdheer u soo jeedinayaan xukuumadda inay mas'uul ka tahay dalka iyo dadkaba isla markaana looga baahan yahay qorshihii dadka danyarta ah lagu taakulin lahaa. sidoo kale culimadu waxa ay ganacsatada ku boorinaysaa inay la dareen qaybsadaan bulshadooda. qodobka sagaalaad ugu dambeyn culimada gobolka Togdheer waxa ay bulshada Somaliland ku adkaynaysaa inay qaataan dhaqan geliyaan talooyinka ka imanaya bahda caafimaadka isla markaana ay ku dadaalaan in kor loo qaado nadaafadda si gaara iyo si guudba.